بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ka salaamayaa dadweynaha ku nool gobolka Karkaar khaasatan Qardho oo aad iyo aad maanta soo diyaar garoobay inay soo dhaweeyaan ciidamadoodii kala duwanaa oo horeyna ay qaybo ka mid ah ugu aadeen goobta difaaca kuwa kanuna ay yihiin ciidamadii kuwa ku xigay kuwa kalena ay soo socdaaneen iyagoo ciidamadaasi ka diriraya dulmiga iyo dhibaatada lagu samaynayo dadka walaalahooda oo heel harti bay u socdaaneen heel harti weeye ciidamada tani waa qaybihii kala duwanaa ee ciidamada gobolka Bari iyo Karkaar kala duwanaa ciidatan khaasatan waa beel hadii la yiraahdo beel ciidamada iyagoo isku wada mid ah oo wada Karkaar haddana waa beesha Muuse Saleeman ama Ugaar Saleeman ninba sidoo u yaqaano oo ka tirsan gobolka Karkaar iyo Bari waxa weeye waxay diidan yihiin in dhulbahate keligooda ay ahaadaan oo Kenya kaalay la bado bay ciidamada soo ka soo horjeedaaneen waxa kale u sheegaynaa walaalaha iyo nimanka jooga meesha la yiraahdo Hargeysa iyo Burca oo gobolada degan Isaaq waxaan u sheegaynaa inay sida ugu dhaqso badan kala baxaan ciidamadooda annagu ma rabno dhibaato ma rabno dhulkooda uma socono hartina dhul ma kala laha waa ku kala badan yahay dhulka laakiin harti dhul kala leeyahay ma jiro waxaan ka maqlaa markasta waxaan ka maqlaa ma jeerteen baa soo duulay kabla laxbaa soo duulay oo maxaa loo soo duuli waayay markii la isabtirsado waxa weeye waxay la siman yihiin habar jecel harti la siman yahay marka inay yiraahdaan iyagoo isku duuban inay yiraahdaan maalin walbaba maxaa ma jirteen u soo duulay ma jirteen waa idin imanaya waana is arkaysaan haddii si dhaqsa ciidamadiina kala bixin waxaan kale to halkaan aan aad ugu hambalyeynaya dadka garaadada dadka yaani aragtidoodu fiican tahay isku jira beesha Isaaq oo dulmiga kan aad iyo aad uga hadlay iyo Soomaalida kale to khaasatan Hawiye oo aad iyo aad uga hadlay dulmiga lagu samaynayo reer laascaanood iyagoo islaamnimo iyo Soomaalinimo iyo muslimnimo intaba maxuu ahaayay eegaya waxaan leenahay marka musahandaraabo inta goor tahay ciidamada kala bax hadhowdii la isma eedo waana mahadsantihiin dadkeena